shirkan ballaaran oo lagu qabtay gudaha degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa looga wada hadlay sidii qayb weyn uga qaadan lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug gaar ahaan dhinaca ammaanka iyo horumarinta degmada. Shirkani waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaanada Galmudug, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guud ahaan shirka inta uu soconayay odayaasha iyo saraakiishu waxay isla fahmeen in ammaanka deegaanka Gadoon iyo deegaanada ku xeeran inta laga qabto mooyee inta kale la iska kaashado. Waxayna guud ahaantood isla qireen in ay maanta tahay maalintii la isu kaashan lahaa si guud ahaan deegaanada Galmudug ay u noqon lahaayeen kuwa laga hirgeliyo ammaan ay dadku ku noolaadaan. Jamaal Sheekh Cabdishakuur oo kamid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa ugu horeyntii waxaan leenahay horta oo maanta halkaan martiqaadkan soo dhaweyntan ku sameeyay nabadgelyada halkaan inaad xanaaqtaan inaad saldhig ka samaysaan qaybaha aadkiin oo ciidamada aad u toobatiin halkaan inaad saldhig ka samaysaan militariga nabad sugidda booliska dhammaan waxaan ka doonaynaa inay halkaan saldhig weyn ka sameeyaan. meeshaan waa sideed haddii xuduudka ay xukunto oo halkan ku yaalla haddii la kilomitri aad iyo aad baa loo cajiib noqon lahayd. haddii la marsiiyaan aad u wanaagsanaan lahayd oo aad aragtaan dadku waxaysan arag waxba waa weyn waxay la tahay waxaysan waxba kala weyn. waxaa aad iyo aad markale aan ugu soo celinayna inaan soo marsiino xuduudka degmadaan xukunto. sidaas baan rabnaa inaan ku soo dhoweyno ilaa adina aad ku aragtaan walaa diishana aqbal maysa oo waxadeedu waa dadal laakiin marka ogaataan halkaas way meesha wax ka qaban doontaan. waxaan idin leenahay waan ka doonaynaa qoraalna ku dhiibi doonaa haddana waxaan idin ku leenahay inaad halkaan saldhigga ciidan ka dhigtaan oo saddexda qaybood oo ciidan yahay. halkaan waxaa u dhisan degmadii baa u dhisan, waxaa u dhisan saldhiggii booliska u dhisan, waxaa u dhisan caafimaadkii, waxaa u dhisan iskoolkii, waxaa u dhisan oo kaleeto halkan oo laga rabaa qaybta ka maqan waa qaybta amniga. intaas kadib isna goobta waxaa ka hadlay taliyaha qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana uu goobta ka sheegay taliye Qooje in ay guud ahaan dhankooda ay diyaar u yihiin qaybahooda kala duwan ee ciidamadu inay ka qayb qaataan horumarinta ammaanka deegaanka. boqolkiiba boqol aad baan u faraxsanahay deegaanka aan nidaamno. anigoo markii ugu horreysa aan imaado halkan deegaankan Dar es Salaam haddaan ka gudbo soo dhaweynta kadib waxaan rabaa inaan laba kelmo ka hadlo idhaahdo laba kelmadood. mid waxay tahay deegaankan iyo amniga iyo horumarka laga sheekeeyey ee degmadu dalbatay. taas waxaan dhahaynaa mas-uuliyadda saaran weeye dadka shacabka amnigooda maanta halkan jooga iyo mid maqanba inaan mas-uuliyadda qaadno haddii lahayd. farsamada amniga lagu sugayo hadday tahay hay-adaha kala duwan ee qaranka Soomaaliya ciidamada qalabka sida waa wax loo dambeeya annagu aan ka hadli doono, laakiin waxaan qaadaynaa mas-uuliyadda ah amniga deegaanka laga bilaabo maanta annaga mas-uuliyadda saqaadana jiraan. waxaan rabaa kale inaan ka hadlo sida dib u heshiisiinta u socoto. dad baa iska lahaa, laakiin maadaama halkaan soo istaagay 4 bilood ka hor deegaankaan maan imaan, laakiin bishii lixaad laga soo bilaabay ilaa hadda oo aan rabno inaan halkaan ka xusno oo madaxda madaxda qaranka ayaa sabab u ahaa in sidaan wax u dhaca. xaaladda ammaanka deegaanka Gadoon waa mid aad u wanaagsan. muddooyinka ugu dambeeyana waxaa ka soconaya horumar kala duwan oo ay intooda badan sameynayeen dadka qurba joogta ee deegaanka ka soo jeeda iyagoo kaashanaya dadka gudaha ku nool dalka. Cabdimaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Dhuusamareeb.